wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in duqeyn xagga cirka oo Mareykanka uu ka geystay magaalada Kabul lagu dilay hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Sheikh Ayman al-Zawahiri. duqeynta oo ay fulisay diyaaradda nuuca aan duuliyaha lahayn ayaa lagu qaaday guri ku yaal xaafadda Sherbuur ee dhacda magaalada Kabul ee caasimadda. Ayman oo u dhashay Masar waxa uu u ahaa Mareykanka bartilmaameed waxaana madaxiisa lagu doonayay 25 milyan oo dollar sanadkii 2001 markii uu dhacay weerarkii Sebtembar 11 isaga iyo Osama bin Laden oo lagu eedeeyay inay ahaayeen maskaxdii ka dambeysay weerarkaasi waxa ay ku jireen Doomaleysi. Ayman ayaa bedelay Osama bin Laden oo Mareykanku ay dileen sanadkii 2011. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xaqiijiyay goor dhaweyto in la dilay Ayman al-Zawahiri. guriga la duqeeyay ee lagu beegsaday Ayman al-Zawahiri ayaa la sheegay inuu ku yaal aagga aadka loo ilaaliyo ee ay degan yihiin mas'uuliyiinta Afghanistan iyo safaaradaha shisheeye. lama oga sida Taalibaanku u ogolaadeen Ayman inuu halkaasi ku noolaado iyadoo guri ku dhowna uu degan yahay taliyaha booliiska Afghanistan. heshiiskii Taliban iyo Mareykanku ay ku kala saxiixdeen Dooxa sanadkii hore ayaa qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in Taliban ay joojiso la macaamilka iyo xiriirka ay la leedahay kooxda Al-Qaacida. afayeen u hadlay Taliban ayaa xaqiijiyay dilka Ayman waxaana si kulul u cambaareeyay weerarka oo ahaa kii ugu horeeyay ee Mareykanku ay ka geystaan Afghanistan tan iyo markii ciidankooda ay kala baxeen bartamihii sanadkii hore. Zawahiri waxa uu ku dhashay magaalada Qaahira sanadkii 1951. waa dhakhtar yarantiisa ay ku beday dabaysha xarakaadka Islaamiga. waxaa la xiray isagoo 16 jir ah. jaamacadda magaalada Qaahira ayuu ka bartay culunta caafimaadka oo ka baxay sanadkii 1971. dhowr weerar oo Mareykanka danihiisa caalamka la egtay iyo kuwa lagu laayay muwaadiniinta Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay Dr. Ayman al-Zawahiri. diyaaradda weerarka fulisay ayaa nooceedu u ahaa MQ-9 Reaper waxaana la sheegay inay ka duushay saldhigga ciidamada cirka Al-Dafra ee ku yaala waddanka Imaaraadka Carabta kuna dhow magaalada Abu Dhabi. lama oga sida Mareykanka ay ugu suurto gashay inay helaan xogta ku aadan Ayman al-Zawahiri ha yeeshee waxaa jira tuhun la xiriira in macluumaadkiisa la bixiyay. madaxweyne Biden ayaa ku faanay inay dileen nin ay doonayeen 20 sano in ka badan waxaana uu xusay inay Mareykanka u tahay guul weyn dilka Ayman al-Zawahiri. weerarka ayaa dhacay 48 saac ka hor iyadoo dadka magaalada Kabulna ay soo tabinayaan qiiq iyo uura ka baxaysay guriga la duqeeyay iyo agagaarihiisa.